wardegdega daawadayaal deegaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya si weyn ayaa la iskugu hayaa waxaana isku haya mucaaradka maamulka koonfur galbeed iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka koonfur galbeed ee uu hogaamiyo Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dadkuna waxa ay leeyihiin waxa ka soo socda koonfur galbeed iyo webiga Yaaweyn caasimada gobolka Boqol ee Xudur oo ka soo jeedo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe si weyn ayaa xilligan la iskugu hayaa ayadoona Aadan Madoobe dadka ku nool degmada Xudur ee gobolka Boqol oo ku amray inay dhigaan barnaamij weyn oo ay ku soo dhaweynayaan dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya oo codka aqlabiyadda leh ay ku ansixiyeen golaha shacabka sidoo kalena oo saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya balse madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa ku amray dadkaasi inaysan barnaamij sheegtay xitaa wax ku saabsan dawladda federaalka ee Soomaaliya aysan soo hadal qaadi karin ciidamada siyaasiyiinta mucaaradka ee ka soo jeeda deegaanada maamulka koonfur galbeed ee maalmihii la soo dhaafay sida weyn ciidanka ugu daldalayay deegaanada maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaana maanta waxa la soo warinayaa inay la wareegeen degmada Qansax Dheere ee gobolka Bay horena waxay u joogeen degmada Buuraha Kabo ee isla gobolkaasi Bay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sidoo kale go'doomiyay caasimada ku meel gaarka ee maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ee Baydhabo ahna sidoo kale caasimada gobolka Bay ciidamo cusub oo la sheegay inay yihiin daraawiishta maamulka koonfur galbeed dhawaana tababar loo soo xiray ayuu ku wareejiyay magaalada Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen dhinaca kalena dhammaan dabaqyadii ku yaalay magaalada Baydhabo ayaa furayaashii lagala wareegay oo dadkii shacabka ee lahaa dabaqyada ama guryaha dheer ee ku yaala magaalada Baydhabo ay la wareegeen mas'uuliyiin la sheegay inay taabacsan yihiin Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale laamaha amaanka cabsi weyn ayaa laga qabaa in xataa Baydhabo dhexdeeda oo isku dhac u dhaxeeya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo sidoo kale mucaaradkiisa hubeysan oo ka dhaco waana mid keentay cabsida ah in Cabdicasiis Laftagareen oo isku halay waayo mas'uuliyiinta iyo sidoo kale dad kale dabaqyada ama guryaha dheer ee ku yaala magaalada Baydhabo taasina ay keentay in laga wareego dhammaanba furayaashoodii Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo ciidamadiisa taabacsan hadda waxay iskugu soo hareen laba degmo oo kaliya gobolka Bay marka aan ka hadlayno waana degmada Bardaale iyo sidoo kale Baydhabo sida ay nala wadaageen ilaa xil kasta oo ku sugan degmooyinkan aan warbixintan xilligan aan ka warinayn sarwada saaxiibayaal daawadayaal xaaladda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa marba markii ka dambeysay maalmihii la soo dhaafay si weyn isku soo bedeleysay ka gadaal markii khilaaf xoogan oo soo kala dhaxgalay Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo la xiriira dhinaca doorashooyinka Laftagareen ayaana haatan si weyn waxa uu doonayaa inuu deegaanadaas oo ka qabto doorasho oo asaga oo madax bannaan yahay oo doorashadii dadbaneeda halka dawladda Soomaaliyana ay si weyn ay u diidan tahay sidoo kale Cabdicasiis Laftagareen ayaa diiday inuu soo dhaweeyo sidoo kalena uu hambaliyeeyo dastuurka cusub ee la ansixiyay ee yeelatay dawladda federaalka ee Soomaaliya mucaaradka iyo sidoo kale